kulanti wacan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halkani waa durdur media oo aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan maanta la qaadan doono ninka dadka ka waalo oo dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan Xasan Toob magaciisa dhameystiran waxa loo oraahdaa Xasan Mustafa Isaaq Xasan Toob oo maanta aan waraysi xiisad badan la yeelan doono daawasho wacan in soo dhaw Xasan daawadayaal waxa la jooga majaajiliste ahna qof koobiyay ama wariye koobiyay maxaa la yiraahdaa codka Atoosh oo ka tirsan BBC runtii aniga waa la yaabay markii aan ninkan codkiisa hadda ka hor aan helay sidoo Atoosh u keenayo Atoosh waxaan ka dhigay jir BBC-da isaga oo waxaan rabaa talentiga Atoosh oo ka tusaalaan BBC-du jooga halkani waa BBC oo idin kala hadlayso mowjadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga heli kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeena waa bbcsomali.com habeen wanaagsan ayaan habada idin kalenahay khiyaartana dhageysanaysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caawa iyo caalamka qodobadan ku soo qaadan doona waxa qayb ka noqon doona dad Suuriya ka soo barakacay oo Muqdisho ku sugan dagaalkii Suuriya oo habada isku sii shareerayo madaxweynaha Faransiiska oo dadka Soomaaliyeed ay aad ugu caroodeen hadal uu ka soo jeediyay goob uu khudbad ka soo jeedinayay Arsenal oo ayaan dara ay haysato Liverpool oo waayahanba iska galab ah Manchester United xaalkeeda waa alu sahal waa mar kale iyo caawa iyo dunida durdur media joogna BBC-da ma aha Atoosh ka soo laabanay oo BBC fadhiyay runtii waa wax cajiib ah annaga ka durdur ahaan maadaama aan ka shaqeeyno arimaha bulshada gaar ahaan soo gudbinta barnaamijyada xisaabta runtii waxa aad iyo aad noo farxad gelinaya ama na dhiirigelinayo walaalkeena sidoo uu hadlaayo talentigu gaarka uu leeyahay Atoosh adiga ma dhageysan jirtay Atoosh ma dhageysan jirtay Xasan aad u maasantahay asagana waan dhageysan jiray sidoo kale waxa jira barnaamijyo oo saddexley ahay oo hadda ka hor aan soo jeediyay oo xitaa bulshada ay aad u la yaabtay barnaamijkaas waa 12 qodob ama 12 barnaamij ayuu ka kooban yahay waana saddexley wuxuuna u dhacayaa sidan saddex laguma faano naa qurux badan guri kira ah iyo gaari tabal ah saddex looma heeliyo fuli dulmi badan nacas garmaqaata ah inaag masiir badan saddex looma gar qaado wiil iyo waalidkiis macallin iyo ardaygiis naag inin isjecel saddex dadka ayaa kugu nacayo baahi badan baryo badan iyo bugtaan badan waa barnaamijyo aad u xiisad badan saddexleyda ugu dambeysana waxay tahay saddex looma xiiso naag faan badan diris xan badan iyo suldaan qaylo badan marka asxaabta codkaasi aadan u jeclahay in muddo ahna waan soo daynayay sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kamid noqdo teamka durdur media sidoo kale waqti dheerna aan halkan ku qaadan doono oo mar walba aan soo jeedinay barnaamijyo aad u xiisad badan dad badana waxay leeyihiin durdur waa laga leeyahay durdur dadka Soomaaliyeed iskale Xasan Toob waa kan waa uu jooga waa nin bulshada jecel Soomaalida ninka wanaagsan waxay u arkaan inuu xun yahay uu dadka ka waalo hadda aniga ma ka waalay wariye mudane wariye Atoosh aad u maasantahay aniga igama waalin laakiin waxaad i weydiisay barnaamijyo oo hadda ka hor aan soo jeediyay iyo taariikhyo aad u fara badan sidoo kale waxa soo dhow maalintii aan saxaafada ku soo biiray oo ku beegan 29 bisha December sanadka 2020 sidoo kale waxaan jeclahay in barnaamijkaas aan bulshada dhex qaadno oo halkan aad kala socon doontaan marka asxaabta waxaan idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawo halkan waa durdur media hadii aad u baahan tahay xayeysin hadii aad u baahan tahay in lagu soo shaac bixiyo hadii aad jeceshahay in lagu kala kiciyo Xasan Toob waa kan waa nin shirkadan waa shirkad soo saarta dhalinyar aad u badan oo ku nool Soomaaliya iyo caalamka kale sida Fartuun Balbalaarka iyo rag badan ayaa halkan ka soo baxay xitaa Sharma Boyga aad arkaysaan oo hadda dadka ka waalayo shirkadan ayaa soo shaac bixisay waxaan ku weydiinayaa adiga maxaa aad u jeceshahay hadda dadka inta badan waxay arkeen anoo war soo tawinay laakiin hadda waxa ay qorsheysan in aan hal hees aan soo diyaariyo on soo kalkiiso barnaamijyo qabatid barnaamijyo xiiso badan ka daadiiso ninkan durdur media team waaye durdur ka tirsan yahay maanta laga bilaabo wuxuu soo gudbin doonaa barnaamijyo xiiso leh waa nin kaftan loo ah
su'aalihii way diyaarsan yihiin tijaabi nasiibkaada in barnaamijyo kale waxaa jiri doona oo iyagana isla baqtiya nasiibka ciyaarahana waa tabinayna ciyaaraha xataa waa soo tabinayna degmooyinka si fiican durdur page-ka ayaad kala soconaysaan iyo YouTube-ka xitaa maamul goboleedyada ayaa soo socdo in ciyaaraha Yurub halkaanaad kala soconaysaan marka waxaan idin leenahay anigu kuma xasdaye ha i xasdin adawgaada waxaa la leeyahay cagta ka hoos agalo in xasidnimo ma fiicna adiga intaad qof xasdileed in waxa roon inaad la taliso wadada wanaagsan si uu asaga horumar u gaaro in qofkan hadii uu horumar gaaro wadanka ayuu horumar u gaaray in sidoo kale aniga xitaa way jirtaa dad badan oo mucaarad ugu ah laakiin mucaarad iyo muxaafid in waan taageersanaa horaana u sheegay in qof aan mucaarad iyo muxaafid aan leeyin waa raashin aan cusba lahayn marka qof mucaarad muxaafid aan leeyin waa raashin aan cusba aan lahayn okay ninkan la soo dhaweeyo walaalkeena wariye waaye Atooshare ciyaaraha ma jeceshahay maadaama ciyaaraha wariyeedii tahay waa kala kici kartaa ma ciyaaraha si fiican wali waan soo tawinaynaa in waxaan gudgali doonaa maalmaha soo socdo in si live ah u daawata sabtida ama axadda ayaan isku dayi doonaa inaan si live ah u soo gelino page-ka marka in durdur waxaan rabnaa in shaqadii si joogto ah ay u socoto oo durdur soo saaran siday u socoto si ka sareysa inay gaarto in dhalinyar badan inaan soo saarno in aw iska xasiyoobaan Soomaali waxa lagu garanayaa qofka markuu wax noqdo in qofkii uu wax ku ahaa uu iloowa safiican ma aad u maasan yahay saaxiibkayga Atoosh Durdur Media team ayuu ka tirsan yahay welcome ku soo dhawo Durdur Media studio-heeda waa waxa tahay nin talent leh nin wax qabad leh waxaan ogahay ciyaaraha sida u tabiso oo quruxda badan aad u tabiso runtii waxaan codsanaynaa inaan maxaa la rawaayadii ka qayb qaadato ciyaarihii aad tabiso oo barnaamijyo taxana oo daily ah oo durdur ma laga taabado maalin kasta ma laga daawado ciyaaro waxa haweenkii kaliya wax soo gelisaa in maalintii ciyaaraha taa la tabiyo waraysiyo koonis iyo meelahaas lamida ah u aado aad soo gudbiso waraysiyo soo gudbiso soo warbixin kuma fiicnaa documentary ma qori kartid si fiican wax walba waa la kala kicina documentary-yada inaad samaysid oo dadka caanka ah hadda astaan waxay warbixin ka samaysay ciyaaryahanka sanadka magaciisa wuxuu ahaa xasaasi iyo xaaskiisa sidaas si lamida aad wali waa adinka warbixin aad u begtaan aad daadan war xasano seewa warbixintan ayaan idin soo deyn doonaa sidoo kale xitaa taariikhda ee nolosheeda halkaan aad ka daawan doontaan sidii mar kale gaaro 28ka ayaan diyaarin doonaa in dhacdooyinka ugu muhiimsana aan soo maray laga baahinaya Durdur Media kala waa mishin ay heshay durdur ay u baahneed waxay heshay nin wax qabad leh marka waxaan ku leeyahay keep going guulan ku rajeena shaqo wacan ciyaaraha inaad soo gudbiso waraysida soo gudbiso wax qabad samayso guulan ku rajeena guuleysta waliga guuleysta waliga guul aad Atooshare markii aan dhaqaaqa waa dhinacyada ka eegaye bidix mirig sida ay u taaliyo udgoonteed caraf badnaa aday ku taalay in hala kala kiciyo janalka waxaan idin leenahay maalin wacan oo wanaagsan Facebook ma had leedahay hala share garay barnaamijka هذا يوتيوب كما حليتها lagu soo yaaco in YouTube-ka aad u maasantiin ma kama xaleedahay muxtar gaduud weyn aad ayuu u maasan yahay asagana dhamaantiinba wad mahadsantiin la Bashiir caana boor anta ka salaameena caana boor ninka asagana macalinka weyn ninka ay joohar u xireysantaa waaye maalmahan doorasho kuma mashquul telefoonka miyay qabanayeen safiican waxaan filayaa in muuqaalkan uu daawan doono oo asagana uu soo wactami doono marka asxaabta nabadgelyo jawhar ma leedahay heer jawhar aadan idin salaam in kasto intii magaalada joogo aan idin Sooman ma leedahay xildhibaan Sooman guuleyso aniga waan ku tahay laakiin daa wax qaways afarta sano dambe ana soo socdo madaxweynaha soo socdo asaga dadweynaha Soomaaliyeed waxa lagu bixinaa isbitaalka Somali Specialist Hospital oo ku yaala KBB degmada Hodan ka soo horjeedka jaamacadda Salaam uu fulinayo qaliimada guud oo lacag la'aan ah qaliimada waxaa fulinaya Dr. Rami Hanuuf oo ah dhakhtar Suuriyaan ah lehna khibrad 20 sano oo qaliimada guud ah qaliimada isbitaalku uu fulinayo waxaa kamid ah
qaliimada eernada, baabasiirka, burooyinka minka, dhagaxa xamiitida, dhagxaanta kaadiheysta, borostaatada iyo burada dhunta. faahfaahin waxaa kala xiriiri kartaa